السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب قالق وإذن سلامي. إن ما أنت waxaan doonayaa inaan ka hadlo mowduuc xasaasi ah laga yaabo inaad igu khilaaftid laga yaabo inaad igu waafaqdid kulay wadanka Soomaaliya waynu ognahay in uu ku jiro wadamada lagu tiriyo fail state yani wadan fail garoobay oo yani gabi ahaanba aan order iyo kala dambeyn lahayn ayaa lagu tiriyaa laakiin su-aashu waxay tahay maxaa keenay waxa ugu weyn sababta ugu weyn ee arrintaas ka dambaysa ayaa doonaya maanta inaan ka hadlo. Okay, waan isla wada ognahay sababta ka dambaysa arrintaas waa qabyaaladana xagee ka imaaday qabiil ayay ka imaaday. ilaahi subxaanahu watacaala qur-aanku wuxuu ku yidhi wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu waxaan idinka dhignay oo idinka yeelnay shucuub iyo qabaa'il inaad isku dishaan ama aad u kala tartantaan miyaan u samaynay? maya. ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu yidhi litacaarafuu inaad isku garataan leanna hadduusan nasab jirin oo maaragtay qofka nasabkiisa uusan jirin dadka lama kala saari lahayn, marka ambiyana looma kala diri lahayn, lama kala nidaamin lahayn. laakiin haddaan Soomaali nahay qabiilku wuxuu nagu noqday musiibo, kansar uu nagu noqday, bahal hor caado uu nagu noqday. marka qabiilka haddaan nahay Soomaali waxa la eeday ayuu noqday. haddaba marka waxaan rabaa inaan isweydiino qabaa'iladan Soomaalida ee la sheego dir, daarood, hawiye ama qabaa'ilka kaleba horta wax khuraafaad aha mise waa wax yani run ah? anigu leeyahay waxaan aaminsanahay hadda wixii ka dambeeyo weligiina waa aaminsanaa markaan yaraa in ay khuraafaad tahay waxaas. sababo badan baan idin sheegayaa aan u leeyahay khuraafaad weeyaan. qabaa'ilka Soomaalida ee maanta la sheego sida dirta, hawiyaha iyo daaroodka iyo isaaqa iyo wax lamid dadka qabaa'ilkan yani Soomaalida ah dadka ay ka soo farxameen horta aaway wax sheegaya weliga ama ka hadlaya maaragtay taariikh ahaan weliga maaragtay wax isweydiinayo. Soomaaliya marka waxay leedahay aasaar qadiimi ah oo tusayo in ay jireen dad naga horeeyay oo halkan deganaa kumanaan sano. Soomaalida intaysan islaam noqonin oo aysan diinta islaamka soo gaarin waxaa jira dad meesha deganaa oo laga yaabo inaysan diin haysanin ama kristaan ahaayeen ama diimo kale ay haysteen. marka weligaa wax ka hadlaya weligaa ma aragtay dirka ama daaroodka ama isaaqa wixii ka horeeyay ayagoo gaarsiinaya weligaa maaragtay yani mathalan daarood Ismaaciil buu ku leeyahay. daaroodka lagu sheegay horta marka horeba ma aaminsani in ay aan iraahday in uu dir ka soo farcamay ama ay hooyo dir ay dhashay sida ay dadku sheegaan. mathalan waxaa lagu sheegayaa in ay u tagtay asaga oo yani geed saaran kadibna geedku uu kasoo degay oo halkaasi marka ay afaarihiis ka bilaabmeen oo saas uu ku guursaday. horta su-aasha marka ma isweydiisay maxaa horta marka horeba geedka saaray? qof waalan miyaa maxaa geedka saaray marka hore? qof dhan oo shaqala ma aha miya? maxaa geedka saaray marka horeba? su-aasha horta ma isweydiisay? okay, marka sidoo kale aan baba ka soo qaadno in uu kasoo farcamay daaroodka inuu dir kasoo farcamay. waayo dirka laftigiisa ama hawiyaha laftigiisa dadka uu kasoo farcamay aawey hawiyaha markii la dhaafiyo laazim waxa kasii horeeyey ma ahayn muslim ma ahayn, marka wixii kasii horeeyey ayadoo laga hadlaya weligaa maaragtay marka waxba kama jiraan waxaan waa khuraafaad. qabaa'ilkan Soomaalida waa la sameeyey magacyadan I don't know wax sameeyey laakiin waa la sameeyey. maybe waxaa laga yaabaa in loo sameeyey in dadkan lagu kala qaybiyo. haddii marka dadkan Soomaalida ay kala awood yihiin iskuma ekaan lahayn. that means marka dadkan I think inay one origin ay yihiin, hal origin inay yihiin ayaan aaminsanahay oo hal meel ay kasoo farcameen. laakiin waxay u baahan tahay research fara badan bay u baahan tahay in lagu sameeyo. laakiin waxaad ogaataan inuusan jirin yani qabiilka
ama qabaa'ilka Soomaalida magacyada loo sameeyey waxba kama jiraan, been weeyaan. wax lagu kala saari karo ma laha. haddaad mathalan adduunka aad u safartid oo aad aragtid qaabkay u kala degan yihiin, waxay u kala degan yihiin qowmiyado. qowmiyad kale oo egna ma laha. marka Soomaalida anigu waxaan aaminsanahay waxaan magacyadan la sameeyey waxba kama jiraan, waa magacyo khuraafaada, xaqiiqdina been idinma sheegayo. abtirka haddaad abtirsatid abtirkan ilaa intii un muslimka ah baad abtirsan kartaa, inta kasii horreysay wax yani ma abtirsan kartid. yani dadka kasii horreeyey caddayn looma hayo waxay ahaayeen. wax yar baan ku tusayaa DNA-ga Soomaalida ama hidisidaha Soomaalida. yani DNA-ga waa hidisidaha, yani qofka originkiisa iyo meeshu kasoo jeedo. DNA-ga Soomaalida marka dib loo baaray waxaa la ogaaday in 25% ay kasoo jeedaan qabaa'ilka Ethiopia. yani qabaa'ilka sida Cafarta iyo Oromada iyo yani that's why isugu eegnahay, ma garateen. sidoo kale 15% DNA-ga Soomaalida waxaa ku jira Nilotic people, yani dadkan Kalenjinta, Maasayda iyo Soomaalida arkin sida u dheer yihiin, ay yani sida Soomaalida kale u dhuuban yihiin, marka DNA-gooda ayaa nagu jira. sidoo kale 2% DNA-ga Soomaalida waa dadkan barbarka ah ee degan waqooyiga Africa sida wadamada Algeria, Tunis iyo Morocco iyo xataa Libya laftigeedaba. sidoo kale 8% DNA-ga Soomaalida waa dadka Semitic ah, Carabta iyo Armeniyiinta iyo dadkan, iyo xataa xabashada laftigeeda. yani xabashada laftigeeda waa Semitic people. waxaad ogaataa mar walba xabashida iyo carabta way see kaaga dhow yihiin, leanna because Semitic people oo la isku dhaha ayago anaga waxaa la yidhahdaa Soomaalida iyo Oromada ayaa isu dhow, waxaa la yidhahdaa Cushitic people la dhaha. that's why isugu egnaya marka Oromada waa aragteen oo malinaya. Soomaalida marka maanta waxaa laga dhaadhiciyey qabiil, yani qabiil hebelaa tahay, mana ahabo qabiilka laftigiisa uu sheegaya, maba ahabo. mathalan qofkan habar gidirka ama mareexaanka ama majarteenka ma kala garan kartid, waxaad ku kala garata ma laha. magacyadan wax la sameeyey waa dadkan yani hal meel kasoo farcmeen aaminsanahay aniga 100%. marka Soomaalida magacyadan maybe waxaa sameeyey dad Soomaalida doonayaan in ay kala qaybiyaan. Soomaalidan qabiilkan lagu falay waxba kama jiraan, wax ladin sheegay been baa naloo sheegay. koley waxaan doonayaa haddaad fikirkaaga qabto inaad igu taageertid, haddii aad fikirkaa ka duwan aad qabtidna commenti kusoo qor. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeena maanta. wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.